maalintu dhimanaya Abu Dar cidla cad buu kaligii ku dhintay meesha ribda leeyahay xaaskiisii buu u yeeray isagoo sakaraada way ku dul ooyday markaasuu ku dhina maxaad loo yeesaa markaasay ku tiri kaama maarmi karo kuma maydhi karo kuma aasi karo mara kafan ku noqotana kuma hayo markaasuu ku yiri dhageyso halka u bax buu ka yiri safar jamaa muuminiina soo mari doontee kuwa baa aniga aasi doonay igu yeer buu ka yiri markaasay ku tiri xagee dad aan ka arkaa bay tiri xagee dadka soo maraan xilligan jidka xaajigii xaaska ka noqonayna uu go'ay hadee toole waxaskii mar hore laga noqday dadka dariiqa soo maraya sheegaysa waa dadkee bay ku tiri niyaay dhageysa buu yiri koox anigu aan kamid ahay anagoo masjidka dhex fadhino xalaqad fadhina ayuu nabigu nagu soo baxo wuxuu yiri mid baa iniga mid ah inika keligii cidla ku dhimani doona keligii buu cidla ku dhimani doona aaskiisana jamaacad muslimiin oo muuminiin ayaa ka qayb gali doonta ragii maalinta aan la fadhiyay nin kasta oo dhintay nin magaalo ku dhintay nin tuulo ku dhintay nin reerkiisiiba ku dhintay ninka cidlada ku dhimanaya nabigu sheegay ee jamaacada muuminiintu aaskiisa ka qayb gali doonto waa anige ordo tuurka u baxo jamaacadii nabigu sheegay baa soo mari doonta igu yeer buu ka yiri bal sida hadalka nabiga u rumaysan yahay dadkaas muslimiinta maanta adduunyada joogta iyo muslimiinta qarniga caalamka joogtay farqiga inoo dhaxeeya waa yaqiin khabarka nabi maxamed ay ka maqleen ayay boqolkii boqol iyo ku rumaysnaayeen boqolkii boqol ninkii nabigu uu sheegay buu yiri waa aniga ee cidlada ku dhimanaya ragii kale oo way wada dhinteen tuulo iyo magaalo iyo qaryad iyo reerkooga ku dhinteen ninka cidlada ku dhimanaya waa aniga jamaacadu nabigu sheegay ba aaskayga ka qayb gali doontee halka uu baxo joogsa buu jamaacadii badarki doontaaye isaguna sakaraadkii baa haya tuurtaaba buur bay fuushaa xagga iyo xagga wax ka socday eegta haddana way soo noqotaa maradeeda intay qoysay madaxa u saarta haddana way ku noqotaa siday u noqonaysay bay aragtay jamaacad muslimiin oo dariiqa maraya maradeedii baa markaa sidaa u tidhi baa la dhisi markaa bay soo leexdeen haweeney bay arkeen buurta dul taagan maxaa cidlada ku dhegay waxay tidhi saaxiba rasuulillaahi sal allahu alayh wasalam nin nebi maxamed saaxiibkiiya ayaa cidladaa ku dhimanaya kaalayo ila aasa bay ku tidhi markaasay idhahdeen oo waayo waxay idhahdeen waxay tidhi waa abu dar alghifaariyi radia allahu canhu abu dar baa cidla ku dhimanaye kaalayo ila aasa markaasay soo yaaceen ay yidhahdeen nufdihi biaabaa'ina wa ummahaatina hooyooyinka iyo aabbahay ayaa ku furanaynaaye masaaxiba rasuulillahi baa cidla ku dhimanaya markaasay abu dar oo sakaraada ugu yimaadeen markay dhulka ka soo qaadeen dhabta ay ku qabteen oo indhaha kala qaaday horta wuxuu ku yiri bishaaraysta muuminiin baatino nabiga inuu sii sheegay buu yiri hadiiska nabigu markii buu bishaareeyay ta kalena wuxuu yiri dhageysta laba qof oo muslimiina walaalkood ma dhinto hadday u sabraan oo aynan u ooyin oo ihtisaabna ilaahay ajar ka dalbaan oo u sabraan adoonkaas naar ma arkay waa niga dhimanaya maanta cidla ku dhimanaya nabiga ay sheegay hay ooyin iska sabr buu ku yiri arrinka saddexaad ee sheeg waxa weeyaan mara kafan igu filan hadaan haysto iyada kafan leeyga dhigi lahaa laakiin ma haysto xaaskayguna mara kafan igu filan haday haysana maradaaba kafan leeyga dhigi lahaa iyaduna ma haysatee idhageysta walaalaha iyo ragiina meesha maraya dawladda islaamka nin u soo shaqeeya haduu inagu jiro dharka uu sitaa aniga kafan hayga dhigin buu kafan uga ma baarin dharkaas muxuu dhowraya xaaraantu ka dhowraya jirkiisa inay taabato diin buu wataa taqwad buu wataa iimaan buu wataa zaad buu wataa zaadka uu aakhira la tagaayo inuu ka boorooba ayuu diidan yahay innagana zamankan halkaan marayna waxaan ku cunin baa la cunaa ilaa wax walba cunta Soomaali gaajada baa xaraana bay koodhanaya gaajada baa xaraana kullu jismin nabata fil haram fan-nar awla bihi jir kasto xaraan ku korabu nabigu yiri naarta waxa qolo cuni doonto buu rasuulku yiri xaraantu iska daa adiga ilaa oo shaawadaada taasiirsa shaawadaada way saameyn ubadkaaga xaraanta taqwaduna awlaadda iska soo baxda waracu awlaadu ka soo baxaa lidalika nin boqora quruntii hore ah ayaa qasrigiisa soo galay isagoo walwalsan
xaaskiisii baa ku tiri maxaa ku helay boqor muslima buu ahaa mujaahid ah dowladihii ka dhisnaa bay ahayd bilaad alhindi wa sindi markaasuu yidhi inankeenii aan ciidanka u dhiibay ee mujaahidka ahaa ayaa la ii soo sheegay in la soo jebiyo laga soo adkaaday markaasay tiri warkaa sax maaha ku noqo sax maaha warkaa waxba kama jiraan bay tidhi ha lagu noqdo u yaabay boqorkii oo maxaad og tahay adu anu waxbaan ogahay bay tidhi 7 maalmood kadib haddana boqorkii qasrigii buu soo galay isagoo faraxsan xaaskii baa ku tiri maxaad helay maxaa dhacay maanta waa faraxsan tahay wuxuu yidhi inankeenii gaalada uu ka soo guulaystay haniimana uu soo wadaa uu soo galayaa maanta warkan dambaa sax bay ku tidhi maxaad og tahay adigu waxay tiri waxbaan ogahay maxaad og tahay balii sheeg maalintii horena warkii hore waa diido warkii hore runtaa buu noqdo been buu noqdee waxay tiri inankaygaa curadee mujaahidka maalintuu calooshayda galay luqmad xaaraana afkayga inay gasho waa ka ilaaliyey bay tidhi markaan dhalayna ee naas nuujinta aan u bilaabayna markaan naaska nuujinayo waan u weysaysanayay bay tidhi ilmaha tarbiyadiisii halka aan ka soo bilaabay gaala sidee buu uga soo baxsadaa ma dhici karta bay ku tidhi xaaraantu saamayn bay ku yeelataa dadka bini aadamka lidaalika maanta muslimiinta cadadkoogu uu badan yahay laakiin tayadeennu way yar tahay maanta saxaabada rasuulkuna cadadkoogu uu yaraa laakiin maxaa badnayd tayadooda ay quality bay ahayd quality muslim quality bay ahayd laanna nebi maxamed baa tarbiyadiyey raggaas tarabbu biyadi nabiyi calayhi salaatu wasalaam fii masjid rasuuli calayhi salaatu wasalaam abu dar wuxuu ka cabsi qabaa jirhkiisaasi maro xaaraan inay taabato inan yaroo ansaariya ayaa yidhi aniga go'aan degta aan ku sita maad arkaysaa abu darow haa hooyaday baa gacanteeda ku toshay dowladaha jiray islaamkaana anigu amiir iyo bariidna uma noqone nin ansaariya oo beertayda wixii ka soo baxaan cunaa go'aana hooyaday baa gacanteeda ku samaysay buui maradaa kafan iga dhig buuhi haddaba waa yahe sidiisuu ku dhintay abu dar alghifaari radia allahu canhu ma yakhaafuun kama cabsoonayaan dhimashada bal waxay jeclaayeen daartan cidhiidhiga ee mashaakilka badan leh ee rafaadka badan leh ee macsiyadda badan leh inay ka intiqaalaan oo u intiqaalaan jannadii ilaahay u ballan qaaday caza wajalla waayo aakhira iyaku dadkaas wax u sii dhigteen iyaku adduunyadan iskamaan iman waa layna keenay innaka ujeeddada laynoo keenana laynagama qarina waa laynoo caddeeyo ilaahay qur-aanku wuxuu ku yidhi watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa soo sahay qaata sahay la qaato waxa ugu khayr badan alla ka yaab imaam cali markuu fasiray taqwada wuxuu yidhi hiya alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil walisticdaadu liyowmi alraxiil cabsidu waa maxay taqwadu waa maxay waa ilaaha jaliilka oo 24 saac laga cabsoodo cid kale ha ka cabsoon laanna cabsidu waa cibaado waa juzu min alcibaada weeyaan لكن عبادة وحاولنا كلية صلاة كلية عبسده وعباده محبده وعباده رجده وعباده الله بريده وعباده طال سارشده وعباده سجوده وعباده انت بإلهي ما ينعدك لما متيسن بريد إلهي با متيسي عبسي إلهي با متيسي محيري فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين محبة إلهي با متيسي وحيري والذين آمنوا أشد حبا لله بريد إلهي با متيسي وحيري وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال ربكم ادعوني أستجب لكم با إلهي تلا سارشد إلهي با متيسي وحيري وعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين با إلهي هداد مؤمنين أتهين إلهي تلا سارتا نعم خشيد إلهي با متيسي وحيري نعم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حصيبا صفات كاسدتك مسلمين تلقى هنا هلان خوف من الجليل قاجها كعبسا فقرها كعبسا عدوها كعبسا إلهي غيرك كعبسا أقيم وجهك للدين حنيفا قلبك وجهك ودن وين توجد دين حنيفك عدك لها أوجسا حقوقه هيا هذا مخلوق هوين هذا
حركات كيسا سكنات كيسا إلهي بو باهية موسى عليه السلام مركو إلهي وقرقاري وحال ويري نعم فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون يا موسى هذا دوني فرعون إنا هلاقو وهاقا هذيك يا مؤمنين تهبين مدو مقالة كبحة بالويري أمر ويان في بني إسرائيل بو الشيقي فرعون وهو دماتي خلاص لكن شردي باكو الرأي شردي بحا هاي إلى بحا يسور عبود أمر بان قبا أمر كان فلية بس سيدا إلى هاي فرعون يعيد كيسا كفلنا وهذا كدون تاني نكو بس أنبياء أمر كإلى هاي بيكو السعودان يكو مشاهدات كما آمنان وعلى السعودان خبر كالسمادة كل حين بيدو مشاهدات قالدا آمنتا منافقين تا آمنتا مؤمنين تا مسلمين دوح على الربعين كل حساب تمان غيبات مغيباتك أمرك إلهي إن قادنا لنا نقرب إنك نظامك عالم كان قعنت إلهي بكجرا قعنك لكم مجرو قعنتو كجرا شاكت قعنتو كجرا قعنت إلهي عز وجل أمرك إلهي مسكله موسى عليه السلام هبين مدوب صار قوم كيسي خروج بحا فأسري بعبادي دوما هيك دلمي بالك دلمي هبين مدو صار قفكي عذر دارتر وحو كلها نراع هارينا مانت أرنتو فدي ما جوجت مانت فدي ما جوجت نظامك إلهي بدليا نظامك إلا بدلنا وحو إلهي شرط وقا دغاي inaad wada baxdaan magaalada Faaruq Musa waxa ka dambeeya ma garanay waxa ka dambeeya aniga amarkaas la amray bas inaad ila socotaan ama waxa amarka ka dambeeya aniga shaqadayda maaha ani shaqada ii taala waxa weeyaan inaan amarka fuliyo inagu raacdin bal inaga doonaya bas 600 oo 140 baa lagu qiyaasay muslimiinta nabi Muuse maalinta raacsanay oo u badan haween dad gagaboobay iyo wiilal yar yar iyo ubad yar yar rag way ku yaraayeen ba fircoon baa waagi markuu bariyay ayuu arkay magaaladii Misr oo xaq reer bani Israa'iil deganaayeen cidba deganayn markaas la yidhi aaway waxa la yidhi xal u baxay Muuse iyo muslimiintii xalay magaalada ka baxeen adiguna waxaad ku tashanaysay in qof muslim ah dunyada lagu reebin Soomaha wadigii laha daruni aqtul Musa waliyad'u rabbahu inni akhafu an yubaddila dinakum أو أن يظهر في الأرض الفساد ثم الهين موسى مغلي هذا الكاقي وكابح صديبا لقويري برقاس أنك نقع عريسيين صوبح هذا قال له واحد كاكتي ما دنها وينك كليه كاكا كالي بس كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فرعون سيبوا دونيا رب العالمين قلنا سيبوا دونيا تسعون فراعينكم زمن كسيوي جوغان عالم مدى ماذا لكن طريقة النجاة طريقة اللي قبت بعد أيو المسلمين تكبت بعد أيو لحيا لما تنجز أيا إلهي كقور من نبي موسى فرعون ويحب نحمري لحيا لما تنجز كتر يا قرآن أي الله كقور رمي ما جرى بين موسى وفرعون وحيد أحمر موسى فرعون مليون يلح بقوله كن بقصة بحبة لفرعون ولما لحظة بقوله كن بالي مروديال بفوشنايان مليون كانوا يلقينيين وعلى الله طلق لي لباتكين بيني قف قبطان بريان زي السعودين لبدي عيدن بايسر كبي لهيد فلما ترى الجمعان جماعة موسى حق دنبي إيقان وعيار كان فرعون عيدن كيسيو قد إلا قد الصوحري حق هوري إيقان وقد حق دمنا وجيش فرعون حق دمنا وموت كي عصا حق هورنا وموت كي مدوباي وبدي بين موتين موت الأحمر هي موت الأسود ولكن موسى عليه السلام ظاهر كما السعود النبي وحق السعود النظام كغيب علاقة لليه حي مشاهدات كالنبي كما تأثران أخبارت بني آدم كالنبي كما تأثران نبي وحي كنت تأثران خبر كسمد كيما هذا بس قال أصحاب موسى إنا لمدركون بنو إسرائيل إيمانكم ضعيف لماذا؟ لأن إيمانكم كبن يسنع عبادها العباد مجاهدين يا دعاة يا مضحين للدين ماهين عباد وعبادي سنين
مساجد عمريين نبي موسى دغيسنيين نعم عباده يهاين دين شقدود عباده هاي اما نكا امه دعوه غارسينه او نستحينيا موسى هارون لبداس دعاء هاي بالله لذلك موسى عليه السلام اريد مركي ادكاتay wuxuu yiri dhageysta ma asaad moodaysan arrin qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم markay Abu Bakr nabigu godka galeen muxuu yiri إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله هذا ده إن الله معنا حديث كنا ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما موسى وحيري معي أنا قار وحي لجر إلهي قار بإلهي لجر ولكن محمد وحليهي هو الولين هم مرقون أبو بكر إلهي بمعنا لبدن أبو بكر صديق رضي الله عنه واي النبي يقول للصعداء نبي يقول للدداليا نبي يقول للجولينيا نبي يقول كحنجري سوق مقالة مكة موسم الحج تبسنوا عربت مركز سوى حجيان أي النبي يقول نجري أبو بكر قريش هدين مغلي ويدي عربت حاج كتمد اللقيا برسالة إن نلف فهمانه إكحيو إيجيبي ورنجري مركز أبو بكر هرس عنجري ورنجري ورسول الله صدره هذا القصة دقيست ورنجري مركز النبي يقول نجري من يويني من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة أيا يسود وينيا أيا دلكيس إيجيسنيا أيا إيجرجاريا أيا عدو إيجدفاعيا أيا شغادا إلهي يسودي بي إيجو جرجاريا أو جنة قبلنا قاعد عنكنا 10 سنوات أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنفق دقاله وهيستود وحكم بحي النبي عليه الصلاة والسلام حتى في بعض الروايات جبريل بأوي من النبي وعارك أبو بكر وقميص كيسو كرملية ومعي يا محمد صاحبك أبو بكر درقيسي وقوقه يا جبريل أبو بكر دقاله سيودا انت أنا مكلف ورنكهر أيو أنا قدراتي كبحي بولي حتى مالين عمر يا أبو بكر بس كل عام مدينة مركي اللي يمدي الدولة دبلارات مركز النبي قال الله شاقي مركز النبي قال حناقي منبر كون نبي قال كعو حول ورياضة إدقيستا نكستو إنك مدا دين الإسلام كمالين تاري نيجو يري واتكدوك ستين واتكسو فكريسين واتكسو فكري بعد قلت هذين أبو بكر مالين تان كويري إلهي بقى الصدر والرسول بانعي رمبات شكتي بيجي هذا رمبات شكتي مركز لعكتيسي صدى أبو بكر حوليس أو استعماله أي أنا قلنا أو استعماله دقاله سيمو إلى السبيب رسول كيري أي أبو بكر ما يدين إنسان مالك قدك عربي إرينا إسينا قدك أنقلين إسقى صاحب إلهها قيامهنا حوت كدوش يدنا أبو بكر إسقى إلى صاحبه لذلك موسى عليه السلام حيل أنا ربي جيبا معي خاص معي داسي لأن أبو بكر صديقنا النبي بحيري محاذ ملينا أبو بكر وإننا أركان إسكداي لبي إلى حسد حين أرك كرا وتربية نبي موسى بدل لو كلا دلاعي ولا مريي نبي محمد عليه الصلاة والسلام من مكة إلى مدينة النبي يقول له جاي موسى بدل لو دلاعي والشباب كل فعل جاي ولا كبد هذه الريب إسرائيل طريقة إسلام طريقة الريب إسرائيل كبد بعدين أيا فرعون يعيد قيسنا لقوا بابيه جيبوا جيبه بشارو هذا سفر لو قال جري برشاد القرآنك حتى واحد كو برانيسا قرآنك iyo culumta shariicada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka ah iyo higaada culumta shariicada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa socotaa la marowga wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada ee Daarul Hijra